السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومستبشرة لمثل أيضا له isku soo noqod wanaagsan insha Allah. Cashirkeeni hore wuxuu ahaa bara naftaada. Maanta marka cashirkeeni ayaa inoo bilaamay oo bara naftaada ah. Qaabkee baad markaa naftaada ku baran kartaa? Qofku naftiisa inuu barto waa waxyaalaha ugu muhiimsan noloshiisa, inuu ka guul gaadho noloshiisana u fududeynaysa. Qofka hadduu naftiisa waxba ka aqoonin, wax badan inuu ku guuleystaa ma suurtagelayso. Uu daalan dhacaya. Marka qofka inuu noloshiisa barto, naftiisa inuu barto aad iyo aad bay muhiim u tahay. Qodobka koobaad waxaa waaye maxaa ku farax gelinaya? Qodobyada hal ayaan u kor istaagi doonaa. Waxaan ka fiirin doonaa haddii aad shaqo ku jirto, haddii aad wax baranayso, haddii aad waqti shukaansi oo guuraad isku diyaarinayso, haddii aad reer leedahay, caruur haddii joogto, dhinac kastaba farxadda iyo farxad la'aantaba maxaa keenaya insha Allah. Hal ayaan cashirka u kor istaagi doonaa. Marka waxaa waaye bara naftaada. Qodobka koobaad maxaa ku farax gelinaya? Qodobka labaad waxaa waaye inaad qiimahaaga garanayso. Qiimahaaga inaad garanayso waa muhiim. Qodobka saddexaad waxaa waaye markii walwal iyo walaac uu ku soo wajaho, sidee baad u wajahdaa walwalkaas iyo walaacaas? Qaabab loo wajaho oo saxan iyo qaabab loo wajaho oo khaldan way jiraan. Inta waan ka hadli doonaa wixii ka anfacad ka qaadanaysa. Qodobka afraad waxaa waaye inaad naftaada barato. Qodobka afraad waxaa kamid ah inaad jismiyan inaad is ogtahay. Waqti aad daalan tahay, waqti aad maxaan ku dhahay jirkaagu u faraxsan yahay oo wax kasta diyaar u yahay, waqti uu jirkaagu waxba u diyaar u ahayn, waqti uu jirkaagu xanuunsan yahay, jismiyan ka caafimaad ahaan sidee ayaa tahay? Qodobka shanaad waxaa waaye inaad shakhsiyadaada taqaano. Shakhsiyadaada inaad taqaano aad bay muhiim u tahay. Qodobka lixaad waaye qodobka lixaad waxyaalaha markaas adiga aad ku fiican tahay. Wuxuu doonay ha ahaado wixii aad ku fiican tahay adiga. Qodobka lixaad waxaa waaye inaad naftaada wax ka taqaano. Qodobka toddobaad ayaan ka wadaa waxyaalaha aad ku liidato. Maxaad ku liidataa? Qof noocee ayaa tahay? Maxaad ku liidataa? Qodobka sideedaad waxaa waaye inaad ogtahay fikradahaaga adiga shakhsiyan. Fikradahaada waa fikrado nooceeya. Yacni dadka qaarkood markay fikrado dhiibtaan, fikradahaas fikrado wax duraya waaye. Dadka qaarkood markay fikrado dhiibtaan, fikrado waa fikrado anfac la waaye. Marka shakhsiyan qof fikrado noocee dhiibta ayaa tahay. Taas waxay yacni iman kartaa qofku siduu wuxuu aaminsan yahay. Marka sideed qodob waaye. Sideedaas qodob hal ayaan u kor istaagaynaa. Dhinac kasta ayaan ka fiirinaynaa. Dhinac kasta ayaan ka sharaxaynaa. Wixii marka Ilaahay iga garansiiyo, wixii aan gafana dee nafteeda shaydaan bay ka ahaanaysaa. Wixii aan asiibana waa min Allah, alxamdulillah ayaan leenahay. Idinkana inuu idin anfaco oo walow hal qof xitaa ha noqdee shakhsiyan naftiisa inuu wax iskaga bedelo oo anigana Ilaahay ugu dhawaado sadaqatul jaariya ay noqoto ayaan Ilaahay ka rajeynayaa. Dadku waxay dhahaan like ida, share ida, comment ida, laakiin aniga ma dhahayo. Ana waxaan dhahayaa maasha Allah dheh. Wixii ka anfacana qaado. Intaas ayaan ku soo koobayaa. Cashirkeena qodobkiisa koowaad ayaa wuxuu noqon doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo maxaa ku farax gelinaya? Waa aad buu u balaaran doonaa markaa waa badweyn waaye. Baaxadeedu leeyahay. Dhinac kasta ayaan ka taabanaynaa. Idinkana wixii fikrad taliyo tusaalo wixii aad ku soo kordhinaysaan waa xaggeena insha Allah. Khayr baa idin rajeynayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.